السلام عليكم يلا يهدم عن مدة أفك الصومالية وهذا شمال كستيجوها محل عيد مبارك قار أحيان مدة كل قن تولد بالله عاصمة قروي السعودال كأفكي وقلوا متيد وذنبين وحن بسومري بالله قروي إن دلوا بلوذا دير قلوبين برامج كاس هنقطة حق الدولة هنقطة حق الشعب آد بالي سودويات تفح أنا هلا مشيو الشعب كي آد بيسودوي دولة بنفسها وكلا آد بيسودوي سي برنامج كان واحد حق قبضة أو حوالي مرة عنده تاجنا ما بس إنه يمدي موجرين والله يقول هذا فهمت hase yeeshee maanta oo ciid ahayd caawa markii uu dhacayay waa la karsanay dawladana ka sanashay taliyaha qaybta uu ogolaaday barnaamijka qabsiyooli madaxweyne ku-xigeenka waan hor fadhiistay aniga u sheegay wuxuu yidhi mar haddii ay nimankaas kusoo dhaweeyeen anana intii kaa dhiman baan kugu daraynaa waxaan ku yidhi madaxweyne waxaan u baahanahay برنامج كاس أفيو قلبتي بنا شعبي كلا غيب قاتو هم بعنا نيش شعبي هنا كلنا وكل ما يسمى إن شاء الله كده هكذا مركوبات يا مرلبات يا مرصد حد مرة وحن أدور شان بالنية شعب كيو تاجر يا شيخ وإن شاء الله عاود إنام حفلة كرة بدن أنا ولا قادم من الكل عندنا لكن ويسوي قلبي إذا أودي إذا لما عندنا كم شيء عندنا نمر دليلين dawladii noo ogolaatay marka hore u baahdan waxa weeyaan shuu joojisay iyadana awoodii amarka iska lahayd waxaan leeyahay saasa ka baxay guuliga kooban bismillaahir rahmaanir rahiim sida walaalkeen anshax uu noo sheegay walaalkeen halkan waxaan ugu sugnaa muddo 2 bilood ah hotelka aan hadda ku suganahay ayuu deganaa magaalada ka deganaa طبعا barnaamijka uu waday barnaamij miisaan leh ummadda Soomaaliyeedna wuxuu u yaal buu ahaa waayo afkayga oo qolo matid qabiil iyo reer matid iyo dadkaaga qaybsamo qolo diidantii adigu waxta afqura waa wax weyn oo Soomaali isu soo dhaweynteeda iyo wanaageeda iyo midnimadeeda iyo sinaanteeda iyo cadaaladdeeda ka shaqeynaya weyn qofkuna wax wanaagsan haddii uu qabto ama hormuud u noqdo oo jid wanaagsan uu bilaabo in la garab taaro maahe in la dhabar jibiyo ma fiicna anagu dawladeeda hadda waxba ka sheegi mayno laakiin waan shaqaynaa anagu dadkayga iyo dalkayga dartood baan toogasho ugu xukumanaa anagu maalin walba toogasho ugu xukuman baan haddana waxba qabsan karin oo soo qabsan karin oo waxba samayn karin waana si daho weyn taas waxa weeye anagu dalkaygii waxa weeye Puntland kuma duwana Soomaaliya meel kasta shuu ka dhacaa waxa weeye xamar waa ka dhacaa Baydhabo waa ka dhacaa Kismaayo waa ka dhacaa Hargeysa waa ka dhacaa Somaliland Jigjiga waa ka dhacaa Djibouti waa ka dhacaa maxaa Puntland waxa weeye horta ka takooray Soomaali maxaa tan ka mamnuucay taas waxaan aaminsanahay in la dhiirigelinayo dadka isqarxinaya iyo argagixisada lagu dhiirigelinayo dadkii waxa weeye iyaga inay wax wanaagsan sameynayaan fanaaniintii dhiirigelinta iyo midnimada iyo sinaanta iyo Soomaalinimada ka shaqeynaysa ay xumaato wadaan in laga dhigayo aan aragnaa annagu waxaas waxaan leeyahay waxa weeye walaalkeen anshax ku dadaalay ilaahay garabkiisa ha gala annaguna waa garab taagana laakiin dawladda Puntland waxaan leeyahay Puntland waxa weeye waxa la yiri warna meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna meel dhow ku dhacaa wuxuu yiri cilmi carab cabdi haddii aanu kaalumin aqligu waad ilaab garan waad fahmaysaa meesha aan ka hadlayo warna meel dheer ku dhacaa dhagaxna meel dhow ku dhacaa de waxa fasheen waa fasheen idinka iyo jawaabtiina sugan ayaa waxa ka yeeshaan wassalaamu calaykum